بس نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب انتي وانتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبة قالقة دمان وإذن السلامية من ديان إذن السلامية وانيقو عشر ماركي حسين عثمان. حقا waxaa idinkugu soo gudbin doonaa calaamadaha lagu garto dadka garashadoodu sareyso. Dadka IQ-doodu sareyso ayaa iyaguna ah dad xariifiin ah. Arrimaha lagu gartana waxaa ka mid ah shantan calaamadood. Kow waa dad og dareenkooda. Waxaa laga yaabaa inuu qofku arrin qalad ah sameeyo, laakiin haddii uu yahay mid dareemi kara qaladkaasi ayaa waxaa jirta fursad uu wax kaga bedeli karo qaladkiisa. Lamo waa mid xukumi kara dareenkiisa. Waa qof xukumi kara dareenkiisa, tusaale ahaan sida uu hore u yiri aqoonyahaankii Giriigga ahaa, in la xanaaqo way fududahay. Qof kasta wuu xanaaqaa, laakiin inaad qof sax ah ama arrin sax ah ama xilli sax ah iyo arrin sax ah ugu xanaaqdid qof ma fududa. Taas oo looga jeedo in aad xanaaqdo isla markaana cadhadaada aad hesho oo si sax ah ku maareyso. Mid ka mid ah asxaabtiina uu soo wariyay in qofka ugu xooga badani uu yahay qofka caradiisa xakameeya ama xukumi kara ama isqaban kara marka uu xanaaqo. Number 3 ama qodobka 3 waa mid isdhiiri gelinaya. Waxa aynu la kulannaa dhibaatooyin badan oo ina horjoogsada, laakiin qof kastaba si gooni ah ayuu ugu gudbaa. Marka uu qof had iyo jeer naftiisa u sheego in dhibka hortaagani ka dambeeyo fudayd ayaa ah mid nolosha ka arka dhinac fiican. Waa kuwo wanaag sheegayaal ah, looguna yeero optimistic. Dadka horumarka fiican ka sameeyay shaqada dadkuna jecel yihiin ayaa inta badan ah kuwo dhinaca fiican wax ka eega. Qodobka 4 dareenka damqashada qalbiga ama naxariista. 90% xiriirka dareenka ah ee ka dhaxeeya waa mid aan ahayn hadal. Tusaale sida marka uu qof dhahayo marka aan gabadhaasi arko waxa aan dareemaa naxariis, ama marka uu qof arko qof dhacayo uu ka naxo. Qofka oo dareemi kara inuu qofka uu la hadlayo murugaysan yahay ama dareemi kara murugada haysata ama mid qaali u ah. Number 5 la dhaqanka dadka. Waa qof farxaan ah, leh soo jiidasho ama burji wanaagsan. Waxa dadka ugu dhaadhicin kara si fudud, u fahmi kara wada hadalka ka dhaxeeya dadka, lana qabsan kara isla markaana ka hortagi kara qabqabsiga iyo saaxiibada aan ahayn.